بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina heeso waxa u dooran wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo Muqdisho yimid soona saaray war cusub cod qayre oo bedelay qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee galmudug siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaca ka qaaday sirta ka dambeysay inaan la buuxin kooramka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya cod beelaha Muqdisho iyo farmaajo oo gaaray heshiis ku meel gaar ah waxaana dheeraad oo laga helayo iska horimaad qasaare geystay oo ka dhacay magaalada Buurhakaba ee gobolka Baay isdabageed oo isku day dil ka badbaaday iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo wafdi u dirtay magaalada Beledweyne kadib markii ay sii xoogeysatay xiisadda ka jirta magaaladaas wararka dibaddan waxa u dooran Iiraan oo ka jawaabtay cunaqabataynta madaxweyne Donald Trump hagaag daawadayaal intaas waxa ayeen qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka kuwada ugu door koron markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo soo saaray war cusub oo ku saabsan xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya iyo xaaladda siyaasadeed dalkan oo Soomaaliya xilligan u marayo wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa xafiiska howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr James Swan ayaa maanta soo gaaray Muqdisho kadib ibaatinkiisa Muqdisho war kooban ayuu soo saaray oo u dhignaa sidan James Swan ayaa maanta yimid Muqdisho si uu la wareego waajibaadka xilkiisa isagoo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa xafiiska howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya diblomaasiga ugu cadaaga ah ee u dhashay dalka Mareykanka ayaa xilkan loo magacaabay 30kii May 2019 waxa uu qaramada midoobay ku soo biirinayaa khibrad baaxad ballaaran u leh dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya hooshii ugu horeysay oo Soomaaliya ka qabtay waxay ahayd 25 sano ka hor markaas oo ahaa sargaal qaabilsan arrimaha siyaasadda oo ka tirsanaa xafiiska ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya sanadihii 1994 ilaa 1996 waqtiyadii u dambeeyay Mr Swan ayaa shaqeynayay isagoo ahaa ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika muddadii 2007 iyo 2008 wuxuu soo noqday danjiraha dawladda Mareykanka u qaabilsan Djibouti muddadii u dhaxeysay 2008 ilaa 2011 wuxuu sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya 2011 ilaa 2013 wuxuu soo dhameystay xirfadiisa shaqo ee uu ka hayay wasaaradda arrimaha dibadda ee uu ka ahaa danjiraha Mareykanka u qaabilsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo isagoo halkaas hayay laga bilaabo 2013 ilaa 2016 waxaan rajeynayaa in mar kale aan la shaqeeyo dadka Soomaaliyeed ee adkeysiga leh oo aan si iskaashi leh ula shaqeeyo madaxdooda ayuu yiri Mr Swan khibradeedii hore ee Soomaaliya waxay mid quseysay xil laba geesood ah laakiin hadda waxaa sharaf ii ah oo mas'uuliyad iga saaran tahay in aan dalka wakiil uga noqdo qaramada midoobay iyo waliba guud ahaan beesha caalamka waxaan ku faraxsanahay wada shaqeynta aan la yeelanayo saaxiibada dalka iyo kuwa caalamka si loo gaaro horumar waara oo ku aadan nabadda iyo barwaaqada ay dadka Soomaaliyeed mudan yihiin sidoo hadalku u dhigay waa hagaag xog ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre uu bedelay qorshihii dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dawlad goboleedka Galmudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa wax ka bedelay qorshihii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku wajahnaa maamulka Galmudug isagoo kulamo ka wada magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dawladda oo markii hore loo arkayay inay hal dhinac la macaamilaysay ayaa haatan bilowday isku day dhinacyada Galmudug ula xaajoonayso si xaaladda loo dajiyo isla markaana loo gaaro heshiis ay dhammaan dhinacyada ku qanacsan yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kulan la yeeshay Macallin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir oo ah hoggaanka ugu sareeya culimada Ahlus Sunnah isaga oo ka dhaadhiciyay sidii loo qaban lahaa shir dhinacyada Galmudug la isugu keenayo ka hor inta aan doorasho la qaban sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa tagi doona magaalada Cadaado oo ay ku sugan yihiin madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo wafdi xildhibaano ah oo Muqdisho ka yimid oo horkacayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare qorshaha dawladda oo markii hore ahaa inay la macaamisho oo kaliya ururka Ahlus Sunnah ee ka taliya Dhuusamareeb iyo Gurceel oo ay meesha ka tuurtay Xaaf ayaa isbedelay markii Xaaf uu aqbalay doorasho inay ka dhacdo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ra'iisul wasaare Kheyre ayaa doonaya inuu xaqiijiyo in Galmudug ay doorato madaxweyne lagu wada qanacsan yahay si khilaafka jira haddii la xaliyo uusan durbaba dib uga soo shaac bixin waa hagaag wali waxaad la socotaan wararka warbaahinta isha wararka daawadayaal
markana siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sirta ka dambeysa inaanan la buuxin kooramka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid aan buuxsamin fadhiyada baarlamaanka. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo si aad ah u naqdiya dowladda dhexe ee hadda jirta ayaa su'aal ka keenay sababta kooram la'aan loogu laayahay kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo kan aqalka saraba. cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa sheegay in baarlamaanku ku dhacay macno iyo miisaan beel. sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay meesha ka baxday awooddii ay lahaayeen ee isla xisaabtanka. kulamadii ugu dambeeyay ee golaha shacabka ayaa inta badan baaqday markii ay soo xaadiri waayeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. weli wararka warbaahinta isha wararka ayaa daawadayaal la socotaan oo aan idiin soo gudbinayno wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. haddii aad rabtid wararka inaad heshid fadlan subscribe ee barteena oo sidoo kale asxaabtaada la wadaag si wararkii ugu dambeeyay markaan soo gelinaba ay u helaan oo markaasi ku saabsan arrimaha Soomaaliya iyo caalamka. dhinaca kalena xog la helayo ayaa sheegaya in beelaha Muqdisho iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay gaareen heshiis horodhaca. warbaahinta isha wararka ayaa ogaatay in heshiis ku meel gaar ah ay gaareen odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka Banaadir iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. heshiiskaas oo ku saabsan go'doonka saaran magaalada caasimadda ee Muqdisho. heshiiskan oo aan ku imaanin rabitaanka dowladda balse la sheegay inuu ku yimid cadaadis la saaray ayaa lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. malaaqa beelaha Abgaal iyo odayaal kale oo ka socday waxgaradka gobolka Banaadir ayaa madaxweynaha Soomaaliya kula kulmay Villa Soomaaliya toddobaadkan waxayna madaxweynaha ku wargeliyeen inaysan mas'uul ka ahayn go'aan kasta oo ay qaataan dadka dega gobolka Banaadir intaan ka badanna aysan hortaagnaan karin cabashada dadweynaha. goobta uu shirkan ka dhacay waxaa ku sugnaa wasiirka amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo siyaasiga Salaad Cali Jelle kuwaas oo taageersan siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa dhammaantood madaxweynaha ku wargeliyeen culayska ka haysta gaar ahaan qadiyadda dowladda iyo sida ay u wajahayso xaalka caasimadda ee Muqdisho. mudane madaxweyne, aniga mas'uul kama ihi mana ka hortaagnaan karo odayaasha iyo shacabka gobolka Banaadir oo ku dhow in ay qarxaan caburin awgeed, ayuu yidhi imaamka beelaha Abgaal. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa imaamka iyo dadkii la socday ka dalbaday in dowladda loo sugo ilaa iyo 1 Luulyo ama toddobaadka xorriyadda kadibna ay dowladda Soomaaliya furi doonto wadooyinka gobolka Banaadir. odayaasha ayaa aqbalay balse waxaa jira warar kale oo sheegaya inaysan xaqiiq ahayn hadalka madaxweynaha ee doonaya in uu ku dajiyo imaamka iyo dadka la socda. madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa isku aragti ka ahayn go'aanka madaxweynaha ee furidda wadooyinka waxaana laga yaabaa in aysan suurtagal gelin ballanqaadka madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ka badbaaday isku day dil. gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Hirshabelle ee uu dhawaan xilka ka qaaday madaxweyne Waare ayaa sheegay in markii saddexaad uu ka badbaaday isku day dil oo qorsheysan. shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayuu ku sheegay in shalay la weeraray isla markaana ciidamo Soomaali iyo ajaanib ah ay soo weerareen si ay u dilaan balse uu dilkaas ka badbaaday sida hadalku u dhigay. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa intaas ku daray in dulmi cad lagu hayo shacabka reer Hiiraan isla markaana mas'uul uu ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo xulufo uu wato sida uu hadalku u dhigay. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ayuu ugu baaqay in talada Hiiraan la soo fargeliyo isla markaana 2 sano iyo bar dhibaato lagu hayo shacabka reer Hiiraan. shirkan jaraa'id galabta oo ku saabsan yahay afkimbi ama isku day ama weerar annaga loo soo qorsheeyay galabtana ana bilaaban oo markii saddexaad galabta ahay na fashilmay. dadka reer Hiiraan ay iska diideen dulmigii lagu sameynayay cadaalad darradii Maxamed Cabdi Waare iyo kooxdiisu ay lamagalay ka soo maleegayeen shakhsiyaad gaara oo qolana ajnabi yihiin Soomaalina ay sheeganayaan qolana ay reer Hiiraan yihiin ay ku dhex jireen ama ay ka dhex muuqanayeen ama hadduu rabo maxamed kan laftiisu u weynaay
alxamdulilah ilaahaan uga mahad celinaynaa dadka reer hiiraanaan uga mahad celinaynaa annaga waxaan ka hadlayno wax reer hiiraan waaye waxaan difaacaynaa wax reer hiiraan waaye waxaan ka qaylinaynaa dulmi lagu samaynayo reer hiiraan waaye waxaan beesha caalamka u sheegaa oo dawladda soomaaliyeed u sheegaa oo dadka soomaaliyeed u sheegaa oo waxgaradka reer hiiraan u sheegaa oo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta reer hiiraan u sheegaa oo xildhibaanada iyo wasiirada reer hiiraan u sheegaa inay talada reer hiiraan ama talada hiiraan u yimaadiin hiiraan uga tashadaan dal iyo dibad ciddaan laga maarmin loo yeero cidday talada hiiraan wax kulagu timaado hadday aqoon-yahan tahay iyo hadday gabar tahay iyo hadday wiil tahay iyo hadday oday tahay iyo hadday ugaas tahay halkan la iskugu yimaado reer hiiraanna tashadaan annagaa joognay ee dadkii joogay la warsado wixii meeshaan ka dhacay 2 sano iyo 6 bilood ee hirshabeelle ay jirtay wixii reer hiiraan lagu samaynayay xudgaal u noqdaan haddii reer hiiraan ay qaldan yihiinna ay qabtaan hadday reer hiiraan saxan yihiinna ay garab istaagaan talada reer hiiraanna aygaa iska leh shalaa laga maroojiyey aygoo qaylinaahe dib uga marooji mayne wixii horoo dhacayna balajeesaan ka bixinaynaahe ama hirshabeelle reer hiiraan wax ugu hali waa in dawladda soomaaliyeedoo dalka ka wada mas-uula ee wax ugu taallo yacni ay soo faragelido aniga saasaan xal u arkaaye uma arkaan in amisom iyo etoobiya iyo laysku soo weeraro laysku shirqoolo laysku handado mar kasta intaasoo jeer isku day dil iyo shirqool iyo maleeg iyo ummadda in la sii dhibaateeyo oo intii horey looga dilay inaan hay laga sii dilo maxamed cabdi waare lamagalaay u fadhiyo uu ka shaqeeyo dhibaato ma ogiyo uusan wanaagna oonu ku soo kordhin gobolkan qof qaadan karta iyo qof yeelaysaa uma jirto annagana dhimashadayna hadalka yuusuf axmed hagar dabageed ayaa ku soo aaday xilli maanta la sheegay in hoyga uu degan yahay ee tageen ciidamo ka tirsan kuwa amisom ee jabuuti ee helwal walow markii dambe xiisad ka dhalatay ee odayaasha dhaqanka ay xaliyeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee beledweyn ee gobolka hiiraan wararku waxay sheegayaan in magaaladaas ay gaareen wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya kadib xiisadda magaaladaas ka jirta oo xoogeysatay dowladda soomaaliya ayaa wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiiro u dirtay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan wafdigan ayaa waxaa horkacayay wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdullaahi goodax barre oo kasoo jeeda gobolka hiiraan mas-uuliyiintan ayaa waxaa si weyn beledweyne ugu soo dhaweeyey xubno ka tirsan maamulka iyo shacabka ku dhaqan magaaladaas ujeedka wafdigan ayaa lagu sheegay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xalinta xiisadda maamul ee ka taagan halkaas sidoo kale inta ay joogaan waxa ay kulamo la qaadan doonaan mas-uuliyiinta hirshabeelle kan gobolka iyo degmo oo ay heliyaan waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku dhaqan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan dowladda dhexe ayaa dadaal xoog leh haatan ku bixinaysa sidii loo soo afjari lahaa xasaradaha ka jira magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xiisadda oo sii xoogeysatay ayaa waxa uu u dhexaysaa guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday yuusuf axmed hagar dabageed iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa diidan in xilka uu wareejiyo islamarkaana uu baneeyo xarunta maamulka inkastoo haatan loo qabtay muddo 72 saacadood inuu kaga baxo xafiiska maamulka ee gobolka hiiraan arrinta ayaa kasii dartay kadib markii xalay shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada beledweyne uu ku sheegay in shalay lasoo weeraray islamarkaana ciidamo soomaali ajaanib isugu jira uu sheegay in ay dili rabeen balse uu ka badbaaday isku dayga dil ee qorsheysna siduu hadalka u dhigay lama oga waxaa kasoo bixi kara dadaalada ay sameynayaan xubnaha hadda gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu dambeyntiina isku hormaad dad ku dhinteen ayaa ka dhacay magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay wararka ka imaanaya degmada Buur-Hakaba oo ka tirsan gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay isku hormaad ka dhashay maamul dhawaan loo magacaabay degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in 3 qof ay ku dhimatay isku hormaadkaas halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen iskormaadkaas ayaa dhinacyadii ku dagaalamay waxa ay isticmaaleen hubka culus oo iyada oo dhawaqa rasaasta ay isticmaalayeen laga maqlayay gudaha magaalada Buur-Hakaba gobolka Bay waxaa deegaanka Buur-Hakaba in muddo ah ka socday muran salka ku haya maamulka degmada waxaa ku sugan magaalada
xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si ay u xaliyaan xiisadda halkaas ka taagan. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in odayaasha dhaqanka ee magaalada Buurhakaba ay qayb ka yihiin wadahadalladaas iyadoo aan weli xal laga gaarin. Waxaa 2 sano ka hor lagu dilay magaalada Buurhakaba banaankeeda gudoomiyihii hore ee degmada. 2 isbuuc ka horna 2 qof ayaa si gaadma ah loogu dilay magaalada dhexdeeda, taas oo salka ku haysa maamulka degmada cidda loo magacaabayo. wixii ka soo kordha xaaladda magaalada Buurhakaba ee gobolka Baay wararkeena ayaa daawadayaal idinku soo gudbin doona. Halka warkaas idinkaga imaanayna waa warbaahinta isha wararka. Markana wararka dibadda, madaxweynaha Mareykanka oo dhawaan soo saaray inuu cunaqabateyn saarayo Iiraan ayaa waxa arintaas ka jawaabtay Iiraan. saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacan saaray cunaqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed lagu xalin karay xiisadda labada dal. Mareykanka ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa ay ugu yeereen cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah. Waxaa si gaar ah loola beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynaha Iiraan Hassan Rouhani ayaa tallaabada maamulka Iiraan ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka. xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen ayaa sheegay in tallaabadan ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iiraan ah. madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee diyuuradihii droonka ahaa ee Iiraan ay Mareykanka ka soo riday toddobaadkii tagay. diyaaradahaas oo nooca waxbasaasa ahaa ayuu Mareykanku ku sheegay inay duuleysay hawada caalamiga ah ee markii ay Iiraan soo ridaysay meel ku dhow gacanka Hormuz ee Khaliijka Carabta, laakiin Iiraan ayaa ku doodaysa in ay ku soo xadgudubtay hawadeeda. warkii uu daawada xilligan kaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa. warkan warka xigeenta dib u kulmi doona sidaas nabadgelyo.